1999 xilli ay Liverpool la tacaalaysay dhibaatada ka haysata daafac la'aanta ayaa waxaa u suurta gashay la soo wareegidda xidiga u dhashay wadanka Finland ee ka ciyaara wadanka Holland waqti xaadirkaas. Sami Khedira waxa uu ku dhashay Porvoo oo ah magaalo u jirta 50 kiiloomitir caasimadda wadanka Finland. Sami waxa uu wax ku soo bartay wadankiisa balse waxa uu u dhaqaaqay dhanka iyo wadanka Holland. Sami waxa uu ciyaari jiray koox William la dhaho ee ka dhisan horyaalka wadanka Holland. Waxa uu kabtan ka ahaa kooxda muddo 4 sano ah. Ayuu kooxda waxa uu ka caawiyay in ay u soo baxaan isreebka koobka UEFA Champions League, isagoo waliba u soo tartamay laacibka sanadka ee wadankaas. 1999 Sami waxa uu noqday laacib Liverpool u xiran doona nambarka 4, laacibka oo taageero u ahaa ilaa yaraantiisa kooxdan Liverpool. Waxaa lagu qiyaasay lacag dhan 2 milyan iyo bar in ay kula soo wareegtay Liverpool. Sami waxa uu ahaa ciyaaryahan fudud isla markiiba la qabsaday kubadda adag ee waqtigaas laga ciyaari jiray horyaalka Ingiriiska. 2001 waxa uu noqday kabtanka kooxda si joogto ah, taas oo ku soo beegantay in uu la qaado 3 koob isla sanadkaas kooxda. Sami Khedira waxaa lagu xasuustaa in uu ka mid ahaa mid ka mid ah ciyaartoyda wacdaraha ka dhigay Champions League finaalkii ay Liverpool la ciyaaraysay AC Milan, taasi oo ahayd ciyaar aad u weyn oo shacabkii daawanayay ay aamini waayeen kasoo laabashada 3-0. Sami kooxda waxa uu ka tagay 2009 waxa uu u wareegay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen, halkaasi uu ku soo bandhigay kafarisiga kubadda cagta. Sami waxa uu kooxda ku sugnaa 11 sano. Wuxuu la qaaday 2 FA Cup, 2 Carling Cup iyo 2 Community Shield iyo 1 Champions League iyo 1 Europa League iyo UEFA Super Cup oo 2 mar uu la qaaday. Waxa uu u saftay 318 kulan waxaana uu u dhaliyay 22 gool.